maanta halkan waxaa lagu qabtay howlkan balaaran oo laga amase loogu jawaabahayay maaragtay kelmadii ka soo baxday abi uu yiri Karamardha ayaan ugu dhisahayaa Itoobiya raggii dagaalkii 77 iyo wixii ka sii horeeyay kaga dhintay ayaan uga dhisahayaa taalo Karamardha runtii kelmadda qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta oo dunida daafeeda ka joogo way xanuujisay aad iyo aad bay noo cadagelisay aad baa looga xumaaday haddii cid maaragtay taalo looga dhisi insha Allah saan rajaynaynana waa looga dhisi shahaadadii halyeeyadii geesiyaasha ahaa ee maaragtay gumaysiga Itoobiya inay ku hoos baxaan ay ka xoroobaan rabay waa ciidooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo dalkooda u dagaalamahayay baa maaragtay taalo looga dhisi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo axmaaradii duulimaadka ahayd wadanka xoog iyo awood ku haysatay haddii taalo looga dhisi wixii kaga baxbaqtiyay gobolka Soomaali galbeed ama Soogaadenya ha uga dhiso Gondar iyo Goojaan iyo Maqali iyo meelo daran ha uga dhiso taalo laakiin gobolka Ogaadenya ama Soomaali galbeed qofba sidoo u yaqaano taalo looga dhisi maayo mana dhacayso mana dhici doonto cid taalada looga dhisayana waa cid loo yahay haddii Ilaahay yiraahdo ma ahayn halyeeyadii ciid u shiiday dadka soo duulay wadan kale ma ahayn raggii wadanka u dhashay bay ahaayeen raggii gumaysiga inay ka hoos baxaan bay ahaayeen ciidoodii bay u shiideen intii kale ee ka dambeysayna dagaalku may sidii u sii waday dagaalkanina dagaal maaragtay qoto dheer buu ahaa oo qori isu dhiiba maxaan ku dhahaa ilaa Axmed Gurey Said Cabdilla Xasan 64kii maxaan ku dhahaa Iswaal sidii hadda saraakiishii Soomaaliya iyo saraakiishii jamhadaha hogaaminaya halka maanta ka sheekeeyeen ilaa ururka oo naga soo hadda maanta u dambeeyay oo xoreyntii sidii uu wada marka halgan wuxuu yahay raggii wadanka u dhashay ay xoreyn hayaan ma aha rag wadan kale ka soo duulay dagaalkii 77 ha jirto dawladda Soomaaliya inay gacan ka siinaysay haddana dawladda Soomaaliya dad Soomaaliya baan wada nahay Soomaali waa hal mida ma kala nihin dad qoomiyada iyagu sida Itoobiya u leeyihiin baan anaguna Soomaali u nahay mid baan nahay ma kala qaybsami doono ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa meel kasta oo adduunka daafiisa ka joogaan Soomaalinimada iyo midnimada iyo walaaltinimada inay ka shaqeeyaan insha Allah gobolkaasuna uu xoroobi Itoobiyana uu ka hoos bixi hornimo degdeg ah ayaan helaynaa Dr. Abiy kelmadda ka soo baxday waa kelmad aad iyo aad khalad ah waa kelmad aad u qadhaadh qof kasta oo Soomaaliyeedna way cadagelisay insha Allah ta'ala saan rajaynayno halyeeyadii shahaadadii u shahiiday ciid hooyo ee dalkooda ayaa Karamardha looga dhisi doona taalo taariikh leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi من دون كلام صبحتي